barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay ahow naftaada. soo uma eki heblaayo sidaan u keenay codka hebel ka waran. cimaamada sidiisa oo kale soo iguma duubna. socodkeedoo kale aan leeyahay. waa hadallo marar badan dhagaheena kusoo dhaca kuwaasoo tusinaya sida dadkaasu ugu howlan yihiin inay iska dhigaan isuna ekaysiyaan dad aan ayaga ahayn. udayashadu waa wax qof kasta uu soo maro noloshiisa kuna daydo qof kale oo isu ekaysiiyo isagoo isleh waxbuu ku dheer yahay. waxa la diidayaa waa inaad qofka asagii oo dhan wada noqoto, sidiisii u hadasho, sidiisii oo kale u qosasho, oo xataa sidiisii oo kale u socoto. waxaasina waa waxa qofka shakhsiyadiisa dhumiya. dareemi kartaa dhibaato intee la-eg ayaad la kulmaysaa marka aadan ahayn naftaada oo aad iska dhigayso ruux kaleeto, iyadoo weliba aad marka ugu dambaysa fashilmay doontid banaankana kusoo dhacaysid. Soomaali waxay dhahaan socod aadan u dhalan 2 tallaabo kulama dhaafo. weligiin qofnaha uga dayanina dhinac kasto ee yeesha dad kala duwan oo aad ku dayataan. hebel waxaan uga dayanayaa aftahnimada iyo sida hadalka loo hagaajiyo, hebelna codkarnimada, hebel jeedinta wanaagsan, halka aan hebel uga dayanayo sida loo fakaro waxna loo falaqeeyo. hebelna sida dadka loola dhaqmo iyo deganaanta iyo macallin igu yahay. isku day qof walba meeshuu ku fiican yahay inaad uga dayato ee ha isku ekaysiinin. qof ayaad arkaysaa isaga oo wax jeedinaya, waxaa kugu soo dhacaya qof caan ah oo sidaas sameeya oo u ka keenay. waxaad hore ka dhahaysaa waa sida hebel oo kale. halkaa waxaa ku lumaya qofkii magaciisii iyo shakhsiyadiisii. waxaaba suuroobi lahayd inuu asaga ka fiicnaan lahaa hadduu naftiisa ahaan lahaa. dhalinyarada maanta ayaad arkaysaa inay isku taxallujinayaan ku dayashada fanaan hebel ama ciyaaryahan hebel oo ay isu ekaysiinayaan xataa dhar xirashada, tinjarashada, dhinac walba. wuxuuna ku leeyahay soo uma eki hebel ama tintaydu soo sidiisii oo kale iguma jarna. waxaa laga yaabaa ninkaasu inuu gaal yahay oo aanu dhaqan iyo diinba la wadaagin. bilaahi calaykum, aaway wiilkaas dhalinyarada ah shakhsiyadiisii iyo dadnimadiisii. ahow naftaada oo ha kuu gaar ahaato qaabka aad u nooshahay, qaabka aad u fakarayso, qaabka aad u soconayso waxyaabaha aad adigu rabto. iskuna day inaad leedahay waxaad adiga dadka uga soocan tahay, dooq kuu gaara iyo nolol adiga kuu gaara. way adag tahay inaad dad kale u xanibnaato oo aad awoodi weyso inaad noolaato noloshaada aad jeceshahay. ma aragteen ama xataa adinkaba min soo martay inaad go-aan gaartaan inaad samaysaan wax ama wax soo iibsataan dhar oo kale. tusaale ahaan, markii aad doonteen inaad soo iibsataan oo aad u dhaqaaqdeenna aad hoosta iska tiraahdeen ama sidaa laydin dhahaa ama lagugu jeejeesaa. haddii waxaan lagugu arko adoo labisan ama lagu dhahaa noocan moodalkiiba ma aha iyo waa dambaysaa, oo isla markiiba iska bedeshay go-aankaas mana ka joogsatay. isu ekaantu waxay naga dhigaysaa hal nooc. u fiirso meel adigoo kala wada ah oo dadku ku nool dhammaantood aanay waxba kaaga duwanayn. waad ka daari lahayd, mana awoodeen inaad joogto. soo sidaas maahan. sababtoo ah ma hesheen baahidaad leedahay cid daboosha, ama waxaad adiga kaa maqan cidaad ka heli karto. sida aawadeed ayuu alle u kala duway. qof walbaana wax gaara uu ku fiican yahay ayuu alle siiyey. alle waa caadil. marka raadi waxa aad uga duwan tahay dadka kale ama kaa soocaya. qaybtii barnaamijka ee ciwaankeedu ahaa baro naftaada waxaan ku sheegnay qaabab uu qofku ka ogaan karo waxa uu ku soocan yahay dadka kalena uga fiican yahay.
qofkii ilaashada shakhsiyadiisa oo aanan dadka isu ekaysiinin ee soo muujiya waxa Allihba u siiyey waa midka dadka saameyn wanaagsan ku yeelan kara. qofkaas waa midka culin iyo hindisaad cusub samayn kara, waana qofka kaliya ee guul weyn gaari kara. ahaw naftaada oo isku day inaadan qofna isu ekaysiin, maxaa yeelay isu ekaysiinta ayaa waxay naga luminaysaa awoodda iyo curinta ku duugan dad kuwaasoo wax badan tari lahaa hadday iyagu is ahaan lahaayeen oo aanay dad kale ma tari lahayn. nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu aada ugu dheereeyey soo saaridda qof kasta iyo halka uu ku fiican yahay ama uga soocan yahay dadka kale. markii aadaanka la jideynayay ayaa nabiga aada wuxuu isugu howlay sidii muslimiinta la isugu keeni lahaa xilliyada salaada markii la gaaro iyo wixii loo adeegsan lahaa arrinkaa. maalinkii dambe ayaa saxaabigii Cabdullaahi ibnu Zayd ee ibnu Cabdirabbo u yimaaday nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo dhahaya waxaan ku riyooday aadaankii. nabigu markii uu saxaabigii ka dhageystay aadaankii ayuu yidhi waa riyo dhab ah ee u tag Bilaal oo ku dul akhri oo bar aadaanka, isaga ayaa kaa cod macaan kaana cod dheere. u fiirso nabiga hadalkiisa, wuxuu yidhi Bilaal u dhiib aadaanka, isagaa kaa cod dheer kaana cod wanaagsan. sababku wuxuu yahay in Bilaal uu ku soocan yahay cod macaanida oo meel dheer uu gaarayo codkiisa. nebiguna ma dhihin dhinac kasta ma dhihin kac inta sida Bilaal oo kale isu ekaysiiso adigu noogu dhufo. dadka qaar ayaad arkaysaa inay galayaan kulliyadaha saaxiibadood galaan oo baranayaan takhasuska saaxiibkii baranaya. waa cajiib. markaas waxaa arkaysaa in takhasuska qaar qof kastaa leeyahay anaa ka soo baxay. maxaa keenaya inaad isu ekaysiiso dad kale, saaxiibadaaba ha noqdeene? maxaase dartood uga tegaysaa wixii aad jeclayd oo aad u duugaysaa una dayacaysaa hibada iyo awoodda Alle ku siiyey? ahaw naftaada oo garo waxaad ku fiican tahay oo aad ka bixi karto ee dadka kale ha isu ekaysiin oo ha ku waayin mustaqbalkaaga. waxaad arkaysaa dadka qaar inay soo saaranayaan profilekooda Facebooka ama Instagramka iyo kuwa la midka ah ee bulshadu ka wada xiriirto sawirro dad kale oo ay internetka ka soo qaateen. su-aal waxay tahay, adiguba sawirkaaga inaad saaratay ciwaankaaga aad gaarka u lahayd raalli kama ahide, sidee qofkan kale aad sawirkiisa saaratay ku ogaatay inuu raalli ka yahay in sawirkiisa aad isticmaasho? waxaa dhab ah in dadku aanay ogolayn in sawirradooda qof kale iska qaato iyagoon laga fasax qaadan. fadlan ahow naftaada oo adeegso sawirkaaga. haddii aadan awoodin, adeegso sawirro ka samaysan geed ama ubax ama wax la midka ah ee uusan qof gaar u lahayn. laakiin inaad qof kale isu ekaysiiso oo sawirkiisa qurxoon aad meesha kusoo xabdhato adoo aanan sawirkaas iyo wax u dhow midna ahayn waa kuu qiimo yari. waxayna naftaada dhaxal siinaysaa liidnaan iyo kalsoonidaada oo hoos u dhacda. ee naftaada sideeda ku ogolow, kuna jeclow oo adigu is ahow, cidna ha mataline. dad badan ayaa sida dadku yihiin iska dhiga isuna ekaysiiyey dad kale ayagoo ka baqaya dhaleecayn kaga timaada saaxiibadood ama bulshada inteeda kale. jeegada ma xiiratay, sarwaalkana dabada hoosteeda ma ka xiratay si laguu dhihin waa dambaysaa. ma marsatay dawo jirkaaga bedeshay, caafimaad darrina ku biday, yaan lagu dhihin way madowdahay darteed. ma uga tagtay asturaadda si aan laguu dhihin waad dambaysaa. dad kale isu ekaysiintood inaan dan moodno oo aan daa'imkay diintiisii u diidno dartood aan iska dayno dadow. uma baahnid in qof kale caqligaaga kaa qabsado ama koobigiis aad noqoto oo aad isu ekaysiiso dhan welibana uga ekaato labiska, hadalka, qosolka iyo socodkaba. ahaw naftaada oo yaanu ku saamayn dadka kale warkooda iyo jeesjeeskooda midna. hore u soco oo jeexo jid adiga kuu gaar ah, noloshaaduna ku socon karto. gadaal ha u janjeersan. waxaa imaan doona maalin ay dadkaasu adiga kugu dayan doonaan oo ay isu ka ekaysiin doonaan. ee noqo geesi oo qofna ha isu ekaysiin ee ahaw naftaada. mahadsanid.
diiwaangeli wixii aad faa'iiday isku day inaad dhaqan geliso siina faafi